السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفة مع سيد الاستغفار. هل كان maanta waxaan kusoo gudbinaynaa istigfaarta ama waxyaabaha la aqriyo oo qaabka loo sameeyo ducooyinka mid ugu fadli badan taqriiban ama kuwa ugu fadli badan insha Allah ta'ala iyo fawaa'ida ku jirta iyo sababta ay ku noqotay ducadani sayyidul istighfaarta sayidkoodi yani madaxdoodi ay ku noqotay. ducadu waa ducada rasuulku yiri Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ducada markaad fiirisaan oo ta'ammul aan ku sameeyno sababtay ku qaadatay macaanida ay ka kooban tahay markaad leedahay Allahumma anta rabbi ugu horeysaba waa iqraar wa tawxiid ar-rububiyya baa leeyahay. tawxiidku saddexdii qaybood u qaybsamaysay ar-rububiyya baa halka kaga soo bixi. markaad leedahay laa ilaaha illa antana waa iqraar bi tawxiid al-uluhiyya waa qaybtii labaad oo tawxiidka. markuu qofku leeyahay khalaqtani wa ana 'abduka ilaahu waad abuurtay anuna adoonkaagi baan ahay waa inuu qirtay adoonku ubudiyya adoonnimo iyo inuu u dulaysan yahay rabbi subhanahu wa ta'ala. markaad leeyahay wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu ilaahi oo ballankii aan qaaday baan ku sugnahay inta aan awoodo waa iqraar iyo qirasho iyaduna inuu qofku dariiqa mustaqiimka wadada toosan uu daa'imayo. markaad leedahay a'uudu bika min sharri ma sana'tu ilaahu waxaan kaa magan gelayaa sharta waxa aan sameeyay waa lujuu inuu adoonku magan galay rabbi subhanahu wa ta'ala sharta iyo macaasidana ilaahi aad ka magan gasho. marka aad leedahay wa abuu bi ni'matika alayya ilaahayo waxaan ku qiranayaa يعني نعمت هذه النعمة سواء إقرار أدونك يعتراف إنه قرتين نعمة رب سبحانه وتعالى وأقلي يصدق وتفضل كأي أنواع النعم قيبه هذا لن أسيي. مركز وأبوء بذنبي جيجنا وانقرنا هذه كلمة مهمة جدا وهي إنها تقرته واعتراف إقرار أدونك إنه قرتي ذنبي جيسي أما ذنبي جاسي متجارة هالنقطة أما متعامة هالنقطة. مرك أولي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وطلب المغفرة من الله عز وجل. إن دم بداف إلهي لقد طلب سبحانه وتعالى حتى مركات في رسود عدن وحيابها أي قرآن سرتي اعتراض بضن أي واحد دريميسا إني سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا بقى أوقات يحلي ذا أوفي عن استغفار الله أقريه أما الدعاء ذا دارتنا أقريه حلي ذا أوفي عن الله أقرسته وحكم ذا كو حلي ذا عبادات كأورنا لقبهم أي عبادة أوفي صدق إخواني وحيابا عجبت بدن أي عبادة walba marka laga baxo iyo taaca laga baxo istighfaarta lagu khatima waa waxyaabo ajabta badan way. haddaan ka soo qaadana xajkii markii intii xajka la maro mina oo Arafo la tago oo maalinta naxriga tawaaf al-ifaadihi weynaa iyo acmaashi la sameeyo buu Ilaahay wuxuu yiri thumma afiidu min haythu afaada an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. tawaaf al-ifaada sameeya kadibna istighfaar iyo dambi dhaaf ilaahi weydiista. maxaa jira waxa laga yaabaa tawaafkaaga iyo khalal iyo gaabin iyo waxyaabo inay soo galeen oo sidii la rabay aad u sameeyay acmaashaadi ilaahi dambi dhaaf weydiiso. waa marka labaad shanta salaadood marka la tukado ee waajibka waa adiga arkay waxa ugu horeeya assalaamu alaykum wa rahmatullah assalaamu alaykum wa rahmatullah markuu imaamku maxaa uu rasuulada astaghfirullah أستغفر الله بأوجه الرئيس ووحي رسولك أورنجري صلى الله عليه وسلم. حلية أوجها بون وحلية سحور تيعة وصلاة الصبح كهر ريا إلى هنا كتل ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار
هم يستغفرون حلقا سحورتي أبي استغفار إلهي ويديسن جرين الله سبحانه وتعالى وحو أماني dadka xilliga suxuurta Allah weydiista dambi dhaaf oo wuxuu yiri wal mustaghfirina bil ashar dadka xilliga suxuurta istighfar weydiista waa dadka fiican xikaaya an yaqub alayhi salam yaqub wiilashiisa tirada badnaa iyo yusuf iyo qisadii iyaga dhaxmaray markii ay yiraahdeen ilaahayow dambi dhaaf uu noo dalab oo ilaahay subxaan u soo rujuuceen qaala wuxuu yiri sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu ghafurur rahim dhawaan baan ilaahay dambi dhaaf idin weydiin doonaa culimadu waxay yiraahdeen innahu akhara al-istighfar ila waqti sahar wuxuu istighfaarta dib ugu dhigay xilliga suxuurta ah sababku sidaas oo ah بخاري مسلم وحكوسم حديث كأبا هريرة أن الله سبحانه وتعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة ثلث كأضم بيهابين كمركز سبح قيب الله قيب تقضم بيس مركز دمن تبي إلهي سودجا سماء الدنيا بوسودجا كدمنا وحوليه هاي مجرى قف إبريا يؤنسيو وحربو مجرى قف وحويديستو أنسيو مجرى قف استغفار ويديستي يدم الناف ودم بجيسة أن أضعفه xilliyada waxaa kamid ah ikhwaani la aqriyo khatm al-majalis goobaha la fadhiyo marka aad aragto meelaha la isugu yimaado rasuulku wuxuu subhanahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam qofka meel la isugu yimido majliska marka u dambaysa aqriya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka waa loo dhaafi wax alla wixii dambi ahaa oo goobta uga dhacay baa loo dhaafaya marka naftaada aad reebi weydo oo dunuubta iyo qashinka ay ku si madax adkaatana rabbi waa kii ku waaniyo oo tusiye dadku yiri walladina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun استغفارتا dadka dhintayna rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam amwaada waa kii u dambi dhaaf dalbay istaghfiru li akhiikum ولكن دم بالداف ويد حتى ومركو قفكو دنتو وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل حتى لو يدينا يا إلهي إنه الصغى ويدي يقول صلاة مركا لقبحو زكاة مركا لبحيو صدقات مركا لسمي جميع الأعمال وقن إلهي في سورة المزمل آيات أقودن بيسير غير وخلص سوء كيني وآيات آخر كذا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله وفرسوا صلاة كذا زكاة بحية صدقات كلا السماء أقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حال لودن بيسي واستغفروا الله صدقة لسوء السماء صلاة بلتك زكاة لبحي هذا الاستغفار تكون ختمة بالي طيب رسولكم صلى الله عليه وسلم آخر حياتي نلشي سؤودن بيسي صلاة كودن بيسي قارها وحال هذا سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا معناها سو انتو تأويلية وفسري أيا وحوز دعاء كسو صار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكد عيسن جري رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحول قلبي جيجا مرمر لطبوله مركاسا أستغفر الله في اليوم 100 مرة بقول جير أيان إلهي دم الدف ويديستا وهاي نوصل صعدة قيبتا صعدة سيغوينك إيا كلمات كلا أديك سدوه استغفارت إن شاء الله تعالى هي إريادة للرواء أقرضه باي نوصل صعدة وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.